إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مركه هراء محد مانتي أي أسقناتي الله ينقوم من يستي دين إسلامك يا إيمانك وحكلوا محد الله سبحانه وتعالى ينقوم من يستي ما أنت إنه مرتين وقايد جاي وإنه مرتجلين إنه الشيخ يجي وينا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون حفظه الله تعالى وحين يسقني مي مساجد كيني مسجد الفرقان مقالة مانشستر ما أنت أو أمال أحد صلاة دي ظهور كذب تاريخ الإسلام كان أيتهاي كوي لباتنكي ذو الحجة كوني أفر بقول إيو أفرتن يتضبا هجري كاسو كوبيغان تاريخ داسو كوبيغان تضبدي جون لبكون يلحيا لباتن وحاينو مرتي وقلنا هاي الشيخ يا الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى إنه قاله ملعام محاضرة عنوان لو قد جاي آخره الدنيا ذا كدور بيت آخرة الدنيا ذا كدور بيت هل هلا هذا هدان كلمة ده صح أنا أورن كريواي مركا الدنيا ذا آخرة يتهين إنه دور بدنا وأينو الدنيا ذا أينو كدور بدنا مركا شيخة أنا أقول دوني الوقت جيسا إن كقاضي وحبضا وحندوني يا دمانتين إن ندكسو دويو إنتي مساج كتشوكتا يا إنت اللايف كا إما كأنه قد دعونا يوتيوب كا إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا والآخرة خير وأبقى أما آخره iyo inay mudnaanta badan yeelato qofka muslimka agtiisa oo adduunka ay ka mudan tahay waa mas'alo ka mid ah musallamaadka ama waxyaabaha qof kastoo muslimi asal ahaan uu rumaysan yahay laakiin waxaa jira insaanka min طبعه abuurkiisa inay ka mid tahay تدقدقت بدن لينو كجعلي هاي تدبو دعيسة دمبيسة ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى قفك بنادم كاو حكو أبوري سيد الله أبوري وحكم ده إنه قفك بنادم كي رغبات يا شهوات وحو جعلي هاي نفط وحيوبا هنت هاي وليه هو ترى بدن له لكن وحكى له إلهي سيي عقلي loogu talagalay inuu xukumo oo toosiyo doonista badan ee nafta ay wax doonayso ee waxa kaloo inta loo raaciyay xasuusin in wax la xasuusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku leeyahay bal tu'thiruna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa ina hada lafi الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إلهي وحلي بل تؤثرون الحياة الدنيا وحاد دور بديسان وحاد دورانيسان نولش الدنيا والدور بديسان معناه دوام حي حويان حوقاقة عقلقاقة واختقاقة هانتدادا وحاد قلينيسا وقبضاني الدون كان سيداد وحقار نقول لهيد لكن إلهي وحلي والآخرة خير وأبقى إذن كوتا إذن كدورنا إياه آخرة أيها كوناك بدن بايله إليه خير واسم تفضيل أخير يعني آخرة كوناك سن أدوك مركا الله يقول حقا قيمة هي كوالتي هي وحيا الله مركا الله يسوء آخرة هذا كوفي عن بايله إليه وحدونك يا الله ومر لباده وأبقى با إلى هيري إيادانا هاريتان بدن ودون كتيسو ووقت كوبان الدنيا ده
haddaad heshana adaa ka tegaya ama iyadaa kaa tegaysa ma ku waaraysid waaris ma leh waa waqti aada u kooban inta aad ku noolaanaysaa sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala idinku adduunkaa doorateen laakiin aakhira ka fiican oo ka wanaagsan marka la eego time framekeeda inta aad joogaysa marka la eegana tanbaa waaritaan badan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala intaasoo qura ilaahay kuma daynine ilaahay wuxuu leeyahy ina haada lafi suxufi luula suxufi ibraahiima wa muusa arrinkaasi in laydin xasuusiyo oo laydiin sheego mar kastaba aakhira inay idinka fiican tahay adduunka kan waxay ku qorayd baa ilaahay leeyay waraaqihii hore la soo siiyey nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo diimihii hore tani maxay tilmaamaysaa insaanku horta waa insaankii ka imika nool 100 sano ka hor kii noolaa 1000 sano ka hor kii noolaa 1000 sano kii ka hor noolaa baahiyaha bini aadamku waa kuwii sidii buu dabciga bini aadamku u yahay walidaalika ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kutubtii horena mas'aladani way ku qoraydoo dadka waa loo digayay nebi muuse kitaabkii loo soo dhiibay iyo nebi ibraahim suxuftii la siiyeyba arrinkani waa ku yaalay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sideedaba diinta xagga alle ka timi usuusha ama waxaa iimaanka ku saabsan iyo caqaa'idda waxaa ku saabsan akhlaaqda usuulkeeda isma bedelaan naskhigu ma galo yacni nebi aadam ama nebi nuux ama nebi ibraahim ama nebi muuse dee waxaa loo sheegay inuu ilaahay keligii in la caabudo waxaa loo sheegay in aakhira jirto waxaa loo sheegay in janno iyo naar jiraan waxaa loo sheegay in xisaabi jirto naskhini ma gasho waa isku wada mid marka usuul alcaqaa'id aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi walyawmi alaakhir isma bedesho usuul alakhlaaq runta ammaanada waxaas inay fiican yihiin beenta khiyaamada waxaas inay xun yihiin isma bedesho beentu cahdigii nebi ibraahim iyo nebi nuuxna waa xumayd iminkana waa xuntay sidqigu waagaa waa fiicnaa oo ilaahay nusuustu soo dejiyay waa tilmaamaysa isma bedesho ilaahay markaa wuxuu leeyahy masaladan bini aadamku inuu adduunka ka jecel yahay aakhiro waa wax uu bini aadamku oo dhami soo lahaa laakiin annana intaaba waa u digaynay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala si masalada xasuusinteeda laynoogu badiyo aayaadkani waxay ka mid yihiin maxay bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhirata wa abqaa suuradday ku jiraan suurat alaclaa sabix isma rabbika alaclaa soo maaha sabix isma rabbika alaclaa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid inuu akhriyi jiray salaatul witrka habeen kasta witr buu tukan jiray witrka qur-aanka la akhriya waxaa ka mid maxay sabix ismaa ka mid يعني سادح ركعدود ugu dambeeya salaaduu tukan jiray waa sabix isma qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul wallah idan sabix isma waxay ka mid tahay on daily basis in lagu xasuusiyo jumcada min as-sunna waxa inuu imaamku akhriyo quraanka sunnada ee la akhriyo waxa ka mid sabix isma iyo maxay suurat al-ghaashiya tamaaneedu waa maxay toddobaadkiina in mar layna xasuusiyo waxaa kaloo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ciidahana in la akhriyo salaada ciideed macnaheedu maxay tahay markaa sanadkiina in 2 jeer layna xasuusiyo marka on daily basis maalin kasta in lagu xasuusiyo toddobaad kasta in lagu xasuusiyo sanad kasta in 2 goor lagu xasuusiyo waa marka laga tago quraankaaga aad akhrisanaysa iyo awraadaadii kale iyo wixii kale marka laga tago intaasoo jeer inaad salaad lagu tukiyo ama aad ku tukato si lagu xasuusiyo bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru wa abqa ina hada la fi suxufi luula ilaahay subxaana wa tacaala suxuftaa hore wuxuu inoogaga warramay fi suurati najm am lam yunabba bima fi suxufi muusa wa ibraahim aladi wafa ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آياتك وأن عليه نشأة الأخرى laga gaadhay miyaan dadka loo sheegin baa ilaahay leeyay wixii ku qoraa suxuftii nebi muuse iyo nebi ibraahim oo sheegaya anlaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna inaanu qof kale dembigiisa xambaaraynin waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qofku inaanu lahayn aakhiro wuxuu shaqaystay mooyaane wax kale inaanu la tegaynin waana sacyahu sawfa yura wax kasta uu shaqaystayna abaalmarkeeda inuu arki doono ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلهي وأن عليه نشأة الأخرى laga tala aayaadkaasoo dhammi waxay tilmaamayaan suxuftii nebi ibraahim iyo kuwii nebi muuse intaba inay ku qorayd in aada laynoo xasuusiyo war adduunkaad door bidaysaan aakhira laakiin ka fiican fi kulli wasfin matluub sifo kastoo adduunka aad ku doorato ta aakhira ka fiican nicmo kastoo adduunka taalla nicmada aakhira taalla ka fiican waaritaanna iyadaa leh waa adduunka nicmada taalla waa nicmo kooban waa nimco yaroo lagugu itixaamayo nicmada aakhira taallana waa ka ballaadhantay xagga waktigana waa ka badantay xagga mukadaraadka waxyaabaha xumeeya ama dhadhanka u diida nicmada adduuna ta aakhira ma leh kow xagga ballaadhnida nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa aakhiro waxa yaalla waa wax aanad malaynaynin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy maa laa caynun ra'at waa wax aan ili arag nicmo kastoo dunida aad ku aragtay marka aakhiro dhana dhinac dhigo waa wax yartani ta aakhiro waxaan ili arag waxaa kaloo lagu tilmaamay walaa udunun samicat waxyaabaha qaarkood inaad arag baa laga yaaba laakiin sheeke inaad ku maqashay waxaasaa fiican halkaasaa waxaas ka jira tan aakhiro waxaad dhegaysatoo dhanna way ka gedisantay baa ilaahay yidhi markaase haddana nebigu wuxuu sii tilmaamay bini aadamku imagination buu leeyahy waxaanu aragoo maqal buu iska sawirtaa nicmadu hadday saa noqon lahayd hadday waxna saa noqon lahayd xataa imaginationkaagoo dhan ma soo hoosgeli kartaa la yidhi waa ka ballaadhantay wax kastoo aad fakerto oo sawirto oo istiraado taloma sidaasaa nicmada aakhira way ka gedisan tahay marka waa maxay adduunka waxa nimco taallo oo dhami iyo aakhira isma dhinac dhigmaan kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wawujuuhun yowmaidin baasira tadunna an yufcala biha faaqira ilahi wuxuu leeyahy war meelintaasi waa meel idinku tanbaad door bideen laakiin aakhiro waa meel wejiyaal dhalaalayaan qurxuun hadday jirto waa meesha qurxi taallo waa meel baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala nicmo oo dhan aad ka helaysaan markaynu soo koobno macnaheedu waxay noqonaysaa ina haaulaai yuxibuuna alcaajila kuwa gaaleed baa ilaahay ka warraba markaasaa ilaahay wuxuu yihi ina haaulaai yuxibuuna alcaajila kuwa kani tan degdegta badan labay jecel yihin wayadaruuna waraa'ahum yowman thaqiila maalin culusna way ka tegayaan waxaan odhan karnaa gaalku sida uu u nooliyey iyo waxa uu rumaysan yahay way iswaafaqsan yihin laakiin cidda sida ay u nool yihiin iyo waxay rumaysan yihiin iskhilaafsan yihin waa inaga gaalka rumaysan aakhira inaanay jirinba dadba inaan la soo saaraynin marka dee siduu u noolaanaya waa inay noqotaa tan wuxuu qasan karoo dhan inuu qasto waa inuu yidhaahdaa halkan waa mary and enjoy waa faraxoo boodbood oo waxaad samayn kartaba samee waayo wuxuu leeyahay life is too short noloshu waa gaabantay marka intii aad ka faa'iidaysan karto ka faa'iidayso gaalada barhkood taa cagsigeeday maraan
waxay leeyihin bahashani mar haddaanay meaningful ba ahayn macnaba aanay lahayn berritoo laga dhimanayo maxaabaa la iska mashquulinayaa iminka isdil ama drop out iska noqo ama sakhraansanow isaga laftiisu waxaynu odhan karnaa wuxuu rumaysanaaya siduu u dhaqmay way is leeyihin marka ninka gaaleed ee aan aakhiro rumaysanayni lojkiskiisu sidii uu siinayey waa inuu ama ka dhinto ama intuu sii boobi karo uu sii boobo laakiin adigu haddaad sidiisii u noolaato haddana tidhaahda aakhiraan rumaysanay taasaa mid cajaba ah ta lala yaabaya waa kaa waayo ilaahay subxaana wa tacaala innaga wuxuu ina leeyahy qul mataacu dunyaa qaliil nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka waxaad ku tidhaahdaa war nolosha raaxadeedu waa wax yar waa wax yaroo weliba mukadar ah mukadarka maxaan uga jeedaa waa qasantay walaakhiratu khayrun liman ittaqa ninkiisaa ilaahay ka cabsadee dhowrsanaya aakhira u fiicnaan badan baa ilaahay leeyahy walaa tudlamuuna fatiila wax yarna laydin dulmin maayo ayuha alaxiba aakhira ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya adduunku siduu u yar yahay marka lasoo bixiyo dadku su-aal baa la weydiin doonaa la leeyahy kam labistum cadada siniin kam labistum fi lardi cadada siniin dunidii imise sannadood baa joogteen waa su-aal su-aashu waxay ku saabsantahay adduunyadii iyo inta sano aad joogtay jawaabta dadkaasi maxay noqonayaan saa ilaahay tilmaamay sannadaa la weydiiyey laakiin iyagu waxay ku jawaabayaan labithnaa yowman aw bacda yowm xataa may odhan labithnaa sanatan ama 2 sannadood baanu joognay may odhanin war mise sannadood baad joogtay baa la weydiinayaa isna jawaabtiisu waxa weeyaan labithnaa yowman aw bacda yowm maalin ama maalin badhkeed yacni say kuula yaraanayso wixii oo dhammi wuxuu kula ahaanayaa inaanu maalin aha ama maalin badhkeed ee fas'al ilcaadiin bay yidhahdeen bal qolada wax tirin jirtay ha la weydiiyo ilaahay baa u jawaabaya wuxuu leeyahy in labistum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun haddaa wax garanaysaan waxa ay ahaydba wax yar baa joogteen baa ilaahay leeyahy haddaa wax garanaysaan oo aqooni ay jirto wixii aad joogteen wax yar bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu ku sifaynayaa adduunkan nicmada taalloo dhammi aaya ayaa ilaahay ku soo koobaya iclamuu anama alxayaatu dunya lacib walahw waziina watafaakhurun baynakum watakaathurun fi lamwaali walawlaad ilaahay wuxuu ku sifeeyey war waxa ogaataan cid wax kuu sheegta waxa ugu fiican cidda waxa aqoonta u leh waa inagana idhahdaa khabiir baa la weydiiyey khabiir baa ka hadlay iyo wallahu huwa alcaliimu alkhabiir walaa yunabi'uka mithlu khabiir sida ilaahay kuugu warramaya cid kuugu warramaysaa ma jirto ilaahay abuuray baa ka warramaya ilaahay markaa wuxuu yihi war waxa ogaataan adduunyadu ma aha ilaa lacib mooyaane lacibka waxaa la yidhaahdaa shaqada la qabtay aan hadafka lahayn gool isla xaqiijinaya ma leh caruurtu waa boodbooddaa waa cayaartaa waa isiryataa laakiin ma jiro wax hadaf waa isleeyihiin maxay waxa gaadha ma jirto lahwigana waxay yidhahdaan culammadu waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha tulhi nafsak waxa la isku mashquuliyo arkaale waktigaan dille soo ma yidhaahdaan waxaan iska daawano kubaddan cayaar waa dantu ka leeyahy waa maxay waa in waktiga isdhaafiyo dan buu leeyahy laakiin maaha dan qiimale baanay ahayn inta badan markaa waxaa la yidhaahdaa lahwiguna waxa dadka waaweyn isku madadaaliya bay yidhaahdaan marka waxaa la yidhi waa cayaar iyo lahwi iyo ziina baa ilaahay yidhi qurux wax la isugu faano wax allaaliya wuxuu bini aadamku haysto wuxuu ku tala jiraa inuu ku faano necessity-gu waa wax yar markay necessity-ga timaado maxaa ah waxaad cunto meel aad seexato iyo maro yar aad ogato intaas waa asalka aad asliyan u baahantahay baahidaadii weeyaan laakiin maxaynu guriga weyne ballaadhane wax lagu xaraynaya aan la garanayn u dhisaynaa liziina dee qurux baynu ka rabnaa
sariir mitira ku qaadaysa maad mid 3 mitir ugu seexanaysaa waa liziina waxaan oo dhamay markaa waa maxay manaasibtu waa ziina madaxweynaanahay wasiir baanahay aqoon-yahan baanahay PhD baan sitaa professor baanahay waxaasoo dhamay moobilkan yaraynu sidayno maxaan maalin walba u bedelaa مثلا ويش ويديسي ايفون 6 هداد اسكا هيستا maxaa kaa xumaan lahaa maxaa iphone 17 aad u rabtaa waxaad sileedahay iyaad noqonin maxay behind the people dee inaad bulshada la socoto oo waxaa laga yaabaa 12 haddaad sidatay inuu kuu qabanayo waxaad adigu awalba ku falaysay waxaa laga yaabaa moobilka maxaynu ku fallaa waxaynu u badannahay inaynu telefoon ka diranno iyo yararku inay wax ku sawiraan wax kale ayaa ku qabsadaa wax badan oo kale kuma qabanno mid walibana intaa uu qaban karaya laakiin maxaynu iphone 16 u leenahay 17 kii baa soo baxay maxaynu leenahay waa liziina waxaa intaas sii dheer maxaynu gaadhiga u bedelaynaa kii horeba meeshii uu ku gaadhsiin karayaa ka dambe cusub baa mid cusub hebel wataa hebel kii ugu dambeeyey wataa modelkii ugu dambeeyey maxay modelladan ka rabnaa والزينة وقرح بين الرمنا مريها يعني نولشي نودمي waxay ku salaysantahay kow ziina iyo tafaakhur baynakum inaynu soo faano oo social status kaaga dabacsantay inaad mujtamaca waxaysta inaad ku jirto ama mujtamaca hay'adaad gaari yaro gaaban oo yaris yar hadaad wadato macnaheedu waa maxay mujtamaca fuqaradaad ka tirsantay marka mar rabtid in lagu asteeyo labadaba gurigaaga way ku geeyaan laakiin waxaanad rabin in mujtamaca lagu asteeyo marka maxaad u baahantahay waa BMW 26 ki soo baxay inaad ka haysato Mercedes 26 soo baxay maxaad u ka haysanaysaa waayo social status ka saad rabtaa inaad ku biirto oo bulshadu indhaheeda markay ku qiimeynayso inay kugu qiimeyso nin wax haysta ama nin ladan ama nin caynkana kaasa doonaysaa waxaa tafaakhura wax allaaliya waxaynu alqaab la baxno magacyo waa professor waa wasiir waa doctor waa dhakhtar waa mostly haddii tacriif la rabo magacaagaa kugu fila laakiin titleskan tirada badan le maxaa loo raacinayaa waa tafaakhurkaasi uu badan yahay waa miisaanu tafaadul ilaahay markaa wuxuu ku tilmaamay waa tafaakhurun baynakum iyo watakaathurun fi lamwaali walawlaad inay isugu faantaan xoolo tiro badan baan haystaa iyo caruur badan baan dhalay maxaa u dhexeeya haddaad 2 dhasho iyo haddaad 20 dhasho midna laguma janno tago saxiga maaha ninka 20 dhalaa miyuu jannada inooga horeynaya maya midna laguma janno tago laakiin statuskaaga ayaa tilmaamaya dee haddaynu Soomaali nahayna nin laan dheeraa baad noqonaysaa oo ilmaadiro badan leh ama tol badan leh waa un magac raadin ولذلك حاله إني باهدي أوده وادو باهنتي وحاد عنيسي وحاد عبيسي ماشي تسيحانيسي إن الدبولي كرتو أنت كلام حدكو سمينسا أنت كلام يعني هذا بقول دارود لهذي مسيحتد ما استعماشد lacagteeda waxa laga yaabaa inaad tiraahdo wixii ka soo baxay project kale aan sii geliyay oo wax kale ku sii samaysay maxaad adigu leedahay adigu waxaad leedahay magaca hebel boqol daarood buu hebel waa milyaneer hebel waa bilyaneer adduunka deemka bilyaneernimadii ku filaan weydo maxaa la leeyahay ninkan la leeyahay wuxuu la badan yahay 960 buu marayaa bay dhaaheen trillioneer buu rabaa inuu noqdo laakiin ninka trillioneerka noqdaa last 10 years مكتئب بوها كنين بوكو ساعدا وبوكا يعني نيكا تريليان كالي ملا وحو كدور بدلا إنو هبين كي سيفي عايسا سيحان كارو إنو هرده هلا ودبتنا يسوع عافمات قبا وسيحان كارو أدونك هو حيث كيسو حتى منقصاتك آخره وحا يري جنة لما قبوبو لما حانوصدو لما باهدو lama kaajo lama saxaroodo waxa laaliyo waxa bini aadamka nuqsaan ku ah oo dhamay
jannada ma jirtaa uu nebigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adduunka se intuba way taallaa waa bilyaneer waa bukaa waxba cuni maayo caafimaadkiisu waa liitaa hurdadiisaa xun xorriyaddii buu waayey magaalada ma dhex mari karayo waayo waa nin caano dadkao dhan baa ku buuqaya waa inuu waa xabsi sharafeed bay ku jiraan bay idhahdaan madaxdu waa maxaabiis bay idhahdaan laakiin lama yidhaahdo waad xidhan tahay waxaa la yidhaha madaxweynaad tahay madaxweynuhu maqaaxida ma iman karo meel kale ma tegi karo qolo la yidhaahdo mukhaabaraad baa odhanaysa halkaa lama tegi karo halkaa meesha iyagu u fasaxaan marka waa maxbuuska askarigu daba taagan yihi meeshuu istaagayo meeshuu wax ka cunayo xataa wax ma cuno ilaa iyo qolo kale dhadhamisa mooyaane marka waa qof maxbuus ku jira laakiin waxaa loogu dhigay qaab kaloo ah inuu yahay nin madaxa oo dee wax kasta laga eegayo oo sharaf le baa loogu dhigay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa adduunyadan war way yartay baa ilaah yidhi mataaca yaallana waa wax yar aakhirase nicmadu jirtaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saxaabadii markii ilaahay la hadlayey waxaad sawirtaa saxaabadii nolosha ay ku noolaayeen bal sawir hadaad iminka kutubu taariikh akhrido ama kutubu siira makii imisay leekayd serviska yaallay intuu leekaa madiine guryaha ka dhisnaa muxuu ahaa waxaa la fuuli jiray muxuu ahaa markaas haddana qur-aan baa soo degay ilaahay leeyahy alhaakum takaathuru wax badsiga idin mashquuliyey baa la yidhi innaga maxaa laynagu odhanayaa markaa ninkii guriga yare dhoobadaa ku jiray wuxuu cuno thriid ba u caansanaa nebigu markuu caasho ammaanayay muxuu yidhi sida thriidku cunada ku yihi thriidka ma taqaaniin waa khubus suqaar lagu googooyey bas waa xabadkiisoo lagu walaaqay maxay in yaroo maraq yara heli baa lagu walaaqaa thriid la yidhahdaa thriid baa u ahaa maxay cunadii ugu sarreysay waxay yidhahdaan saxaabadii madiine ka tagtay iyo markay madaa'in furteen madaa'in waa caasimadii ciraaq magaalo ku taalla waa beershiya meeshii looga talin jiray ayay khubus yaroo khafiif oo bay arkeen oo meel saaran waxay moodeen mindiil faraa la iska mariyo waayo weligoodba masaftan wax lagu saxaabigii la weydiiyey la yidhi daqiiqda saa u cuni jirtay markaasuu yidhi markaa weligayba daqiiq aragnay anagu bahasha isku kuusan baan ridqan jirnay markaasaa lagu yidhi oo miyadan manaakhil haysan weligayba mankhal maan arag buu yidhi mankhalku waa shaandho miyadan wax loo bahasha markaad daqiijisa waxa ku kala shaandhaysaa shaandhaba maan arag buu yidhi anigu weligay nolosha caynkaasaa nimankii ku noolaabaa ilaahay la hadlaya wuxuu leeyahay alhaakum الtakaathuru xataa zurtum اlmaqaabira kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclamuun kalaa low taclamuuna cilma alyaqiini latarawunna aljaxiim uma latarawunnaha cayna alyaqiin uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii soo gala wuu bixin jiray dabeetana wuu gaajooday isagoo gaajaysan buu guriga ka soo baxay goor aan guriga laga soo bixin wakti ah waktigii qayluladee dadku seexan jiru soo baxay abibakar baa ka soo horbaxay abibakar buu yidhi war abibakar maxaa waktiga guriga kaa soo saaray ilaahay rasuulkiisiiyo wallahi gaaja iga soo bixisay buu isna yidhi dabeetana labadoodii oo gaajaysan oo wada socda ayaa cumar ka soo horbaxay war cumarow maxaa ku soo saara la yidhi wallaahi wuxuu yidhi gurigii maanta gaajaan uga soo baxay way israaceen oo saxaabi kale u tageenoo waxar yar baa loo qalay neef yaroo ayaa loo qalay markay neefkii yaraa cuneen buu nebigu suuradda ku dul akhriyay latus'alunna yowmaidin can inaciim buu nebigu leeyahy nicmada tan aakhira laydin weydiin doonaa buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba adduunyadani nicmo kastoo aad ku haysato waad ka tegeysaa wax kastoo aad shaqaysay waad ka tegeysaa markaa nafta ku qabato adduunkaagii xataa fi shariica ma dardaarmi kartid maxaa lagaaga ogolye wixii lagugu maydhayaa adawaadka tajhiiska waxaan qofka marka la diyaarinaya xabaasha iyo meydka iyo maydhista iyo intaa kharashkaaga waa laga isticmaali karaa wixii deyn lagugu lahaana waa laga bixinayaa waxa deyn lagugu leeyahy waa maxay ama deyni bini aadam kugu lahaa ha ahaato ama ha noqoto deyn ilaahay kugu leeyay
zake iyo xaj iyo wixii dayna lagugu lahaana waa la bixinaya hantidii aad ku xiiqday wax hataa hadday dardaaran noqoto thuluth baa lagu ogolaya wa thuluthu kathiir buu weliba nebigu yidhi one third baad dardaarmi kartaa weliba one third kuwa tiro badanyay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maxay macnaheedu maamulkeedaa lagaa wareejiyey qolo kale lagu wareejinaya iyaga maamulanaya kuwana ilaahay u qaybqaybiyo dhaxalka u siiyey kuwaasaa maamulkeeda iskale waxba kaa raaci maayaan ayuha alaxiba hantidu qur-aankaas fi suurati alkahf ilaahay wuxuu inooga warramay nin gaaleed iyo nin muslima oo wada hadlaya ninka gaaleed wuu faanayaa wuxuu ku faanayaa ana akharu minka maalan wa acazu nafra buu leeyahy aniga kaa xoolo badan kaana tol fiican ama dadka hareerahayga jooga ay kaa wanaagsan yihin ilaahayna wuxuu ina leeyahay aniga agtayda xoolo badni iyo caruur badni iyo waxaas kama socdaane tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada daarta aakhira waxaan ugu talagalay baa ilaahay yidhi kuwa adduunka markay joogaan aan kibrin waxna fasahaadin sifaadkaa kuwa leh ayaa aakhiro waxa aniga agtayda materialka haysataan iguma kala dhaweydin baa ilaahay leeyahy ina akramakum cinda allaahi atqaakum qiimaynta ilaahay u yaqaanaa waa mid kale ilaahay intaad ka dhowrsataan baa laydinku qiimaynaya wax allaaliya se waxaad adduun haysataan wamaa uutiitum min shayin famataacu alxayaati dunya waziinataha wamaa cinda allaahi khayru wa abqa afalaa tacqiluun baa ilaahay yidhi ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxa laydin siiyey oo dhami wuxuu doonaba ha noqday aad adduun ku haysataa waa mataacu lxayaati dunya baa ilaha yidhi wax yar yar oo lagu raaxaysta inta adduunka la joogo iyo wasiinatuha wax laysu qurxiyo laakiin wamaa cinda allaahi khayrun wa abqa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey afalaa tacqiluun waxay culimmadu yidhaahdaan qur-aanku marka uu ka warramayo adduunka iyo yaraantiisa marna low annakum kuntum taclamuun baa la yidhi marna afalaa tacqiluun baa la yidhi war miyadaan caqli lahayn caqligu muxuu taraa markaynu idhaahno qofkaasi wuu waalan yahay waa maxay macnaheedu ya marfuuc lqalam waan gartay caqli male markaynu leenahay macnaheedu waa maxay wixii ku habboonaa baanu dooran karin baynu u jeednaa yani ninka waalanay wixii ay ahayd inuu doorto waxaan ahayn buu dooranaya waxaynu u arkayna inay logic tahay inuu sidaa yeelo si aan ahayn buu yeelaya ilahay wuxuu inoo tilmaamaya war adduunkan yar aakhiro laba dhaafsadee caqligii xagguu idinka qabtay baa ilaahay leeyahy ma kii aan ahayn in la doortabaa doorateen markaa that means waa caqli ma lihid markaa weeyaan haddii doorashadaadu ay noqoto adduun iyo aakhiro inta lagu soo hordhigay aad tidhaahdaa adduunkaan dooranaya it means waxaad dooratay kii aan doorashada lahayn ama waxaa lagu tilmaamay cilmi baydaan lahayn baa la yidhi aqoontu maxay tartaa aqoontu inay ku hagtaa bay tartaa waxa qaldan aad kaga weecato waxa sanna aad ku qaadato haddii aad aakhiro ku garan weydo markaa aqoon maaha walidaalika aakhiro markay dadku calaacalayaan maxaa lagu calaacalaa في سورة التبارك يشيك لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير waxay leeyihiin haddii aanu caqli yeelan lahayn waayo caqligu wuxuu ahaa hadday markaad laba shay kala dooranayso inaad doorato kii ku faa'iido badan leh kaasuu caqligu ahaa ama aanu wax dhegaysanay bay leeyihiin oo dee waxaad maqashay ee cilmi iyo aqoontu inay wax ku tartaabay ahayd haddaanu labada midun yeelan lahayn bay leeyihiin maanan ahaanin asxaabu saciir nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu damcay doorashadaasi siday u qaldantay inuu tusiyo dabeetana maalin bay isa soo raaceen saxaabo waxay yimaadeen suuqii markii la marayey ayuu nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam oo soo mareen orgi yar oo dhukanida ma taqaanin qoladiina dhalinyarada ah dhaga yaryar adhiga dhaga yanyan waa ku ceeb orgi yar oo dhukan oo meyda baktiya ayuu soo maray markaasuu nebigu intuu orgigii yaraa dhegtii yareed qabtay buu wuxuu yidhi
أيكم يحب أن هذا له بدرهم كنا جعل كايا درهم سيستي ويضل ولا دور جيرو بختي مليالا يا باوند سيستي وحيد هذا إلهي رسول كسيو كان إنا نيالا حتى ما ننشع على ناني محانو درهم كوسي سرينا دبيتنا وحيد بالدرهم كبيس كده يو أتحبون أنه لكم إنا يالتان ونهضوا ما شعشا يا قاضنا يا بلاش waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu noolaan lahaa ayuu neef ceebaa lahaa orgi yaroo dhukani dee gaaladan ay la joogtaan agtiinna orgigu markuu dhashay dilaan soo maaha riyaha canuun baa loo xataa hilib ma cunaan idun baa la cunaa marka ridaad haysataa hadday orgi dhasho habeen ku xigtay dilaan isaga inta la baktiyaaba qashinka lagu daraa ridun baa la maalaa waayo orgiga haddii la koriyo waa khasaare cuno maaha la cunayo iyaga agtooda saxaabadii waxay yidhaahdeen orgi yaroo haddana dhukani hadduu nool yahay buu ayaanu ahayn wax faa'iido le bay yidhaahdeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum xadiisku saxiix muslimka ku yaala ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunyadan dhan ay isku haysataan manaasiibteeda iyo cunadeeda iyo waxeeduba orgigaa wuu kala liitaa idinka suu orgigaasi idinku yahay ilaahay agtiisa way kala liidataa dee xadiis kalena waa kii tilmaamayey low kaanat iddunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda garab kareeca hadday adduunku ilaahay agtiisa qiimo ay ka joogto gaalba lagama waraabiyeen baa la yidhi ee marka hore aanay meesha tanaynu joognaa qiimo badan lahayn ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahy war labadani laba la ysku doorta maaha wama alxayaatu dunya ilaa lacibun walahwun waladaaru laakhirati khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun wama alxayaatu dunya ilaa lahwun walacibun waina daara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun labadii shay aynu tilmaamaynaa ilaahay tilmaamaya war adduunkani waa dheeldheel iyo lahwi iyo cayaar aakhira nololi jirtaa baa ilaahay yidhi lahiya alxayawaan noloshu dhabtahay aakhiray jirtaa haddaa wax garanaysaan baa ilaahay leeyahy iyo haddaa caqli leediin labadaas sifa haddaad in uunu idinku jirto dad aqoon leh haddaad tihiin ama dad caqli leh haddaad tihiin adduunku wax la doortay inaanu ahayn baa ilaahay inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وارددوا با إلهي ددوا اسكود الضرب بني آدم ودن وار إلهي وحيدين يبو هاي واردب والله سصوب حين يا آخرة دمبيسا جنية نار باجرتا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ور نولش الدنيا يدين كدين هكو كتسومنا هكل منا نولش الدنيا وحي إلهي القرآن كينا قلت المامية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث dadka waxa loo qurxiyay baa ilaahay yidhi nolosha adduunya macmacaankeeda oo dhan dumarkeeda caruurteeda dahabkeeda fidadeeda fardaheeda la tababaray beeraheeda xoolaheeda waxa kor yaaloo dhan waa laydin qurxiyey laakiin ilaahay wuxuu leeyahy dalika mataacu lxayaati dunya waxaasoo dhami waa nolosha raaxadeeda yara kooban weeyaan wallahu cindahu xusnu lma'aab ilaahay baa subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa yaalla ay ka khayr badan yihiin tan qul unabi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina itaqow cinda rabbihim jannaatun tajri min taxtiha alanhaar ayuha alaxiba waa inuu iswaafaqaa warkoo koobani wuxuu waa inuu iswaafaqaa waxaynu rumaysannay iyo waxaynu qabanaynaa haddii aynu rumaysanay adduunkan in laga dhimanayo bini aadam oo dhami uu rumaysan yihi haddii aynu rumaysanay in laysa soo bixinayo mu'min oo dhan baa rumaysan haddaynu rumaysanay in janno iyo naare ay jirto waa inaynu waxa ugu badane aynu haysanno hadduu caqli yahay hadduu cilmi yahay hadduu karti yahay hadduu hanti yahay waxa ugu badan inaynu haysanno waa inaynu taagelinaa saynu wax uga noqon nahay
markaasaynu aakhiro doorannay haddii laakiin kartidaada iyo aqoontaada iyo cilmigaaga iyo aragtidaaduba tan sidaad wax uga noqon lahayd uu noqdo aakhira yeelkeed marka aad tidhaahdo waxaa laynoo tilmaamaya inaan caqli iyo cilmi toonaynu ugu jirin hadday doorashadeennu sidaa noqoto waynaynu markaa waxaynu rumaysanay iyo waxaynu qabanaynaa waa inay iswaafaqaan ninkaa gaalka ah ilaahay wuxuu yihi zuyina liladiina kafaruu alxayaatu dunya kuwa gaaloobay wax loo qurxiyay nolosha adduunyo wayaskharuuna min aladiina aamanuu markay nolosha adduunyo iyo bidhbidhkeeda helaanna kuwanaan haysana mu'miniinta waa ku jeesjeesayaan baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay muxuu leeyahy waaladiina taqow fawqahum yowma alqiyaama kuwii ilaahay ka dhowrsaday iyagaa ka koreeya maalinta qiyaama baa ilaahay leeyahy maalinta dhabta ah ee nolosha ay jirayso qur-aanka ilaahay wuxuu inagu siiyey tusaalayaal bini aadama soomaalidu waxay dhahdaan bini aadamku waa indha ku garaadle marka tusaalayaal baa ilaahayna siiyey tusaale ilaahay wuxuu inagu siiyey qof dumar ah oo guryo boqortooyo joogta oo intay kuwaa ka tagtay aakhiro ku bedelatay innaga barhkeenna xataa ma hayee waa miduu tawahumayo waad heli doontaa buu isleeyahy ayuu aakhiro ku bedelanaya midaanu hayninba ilaahay gabadhan wuxuu inoo tilmaamay inay iyadu qusuurta joogtay aasiyata bintu musaaxim xaggay ku noolayd gurigii ninkii lahaa alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun kii lahaa fircoonkii lahaa ana rabbukum ulacla ee dadkao dham addoomaa u ahaa ayay gurigiisa joogtay markaa qasriga iyo webiyada iyo waxaasaa hoos dareerayay laakiin intay iimaan rumeeyey ilaahay intay rumayso iimaan galay ayay waxay leedahay ilaahay baa inoo tilmaamaya wadaraba allahu mathala liladiina aamanuu imra'ata fircawn ilaahay wuxuu tusaale idinka dhigay baa la yidhi dadkiina mu'miniinta ahay haweenaydii fircoon qabay haweenaydaa maxaa dhaqankeedu ahaa id qaalat rabbi ibni lii cindaka beytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqowmi aalimiin ilaahay ow agtaada jaarnimada ilaahay bay jaarnimada boqortooyada ka dooratay guri ilaahay uu dhisaabay ka dooratay qusuurta uu haysto fircoon ilaahu agtaada guri iiga dhis bay leedahay fircoon iyo camalkiisana iga nabadgeli wanajinii min alqowmi aalimiin waxaa ilaahay tusaale labaad inagu siiyey dadku markuu iimaanku galo ee iimaanku dhab ka yahay noloshiisa iyo iimaankiisu inay iswaafaqayaan tusaalaha labaad waa maxay isla aan qoladaa ka soo qaadanno fircawn markuu rabay muuse in la jebiyo aqoon-yahankiisii buu isugu yeedhay marka aqoon-yahankiisu saxaray ahaayeen sixiroolayaashii waddanka o dhan buu soo ururiyey markuu isugu yeedhay su-aal bay weydiiyeen maxaanu leenahay bay idhahdeen ninkan haddaanu jebinno muuse iyo haaruun iyo intaan isla socota haddaanu waxooda ka badinno oo ku tusinno inay waxaba ahayn maxaanu leenahay aina lanaa la ajran in kunaa naxnu alghaalibiin bay dhahay muxuu ku yidhi muqarabiintaa kusoo biiraysaan buu yidhi xaashiyada kuwa agtayda jooga waa iyadoo dowladda uu nimanka haysta ay ku idhahda hadaad waxaa ku guulaysato madaxdaad ku biiraysaa xagga saraad imanaysaa iyagu markaa maadday doonayeen dunida inay wax ka helaan bay rabeen nicmadan fircoon iyo gruubkan haystaan bay lahaayeen maxaanu ka helaynaa anagu haddaanu ka adkaano isna wuxuu u ballan qaaday muqarabiinta kuwa dhow ee xaashiyada dowladda inay ka tirsanaanayaan in yar kadibna waxa u caddaatay muuse waxaanu wadaa inaanu sixir iyo dhib ahayna inuu yahay maxay nebi ilaahay soo diray inuu rasuul yahay dabeetana waxay idhaahdeen aamanaa birabbi muusa wa haaruun muuse iyo haaruun rabbigood baan rumaynay ilaahay bay rumeeyeen fircoonkii lahaa waxaan idinku darayaa muqarabiinta waa hanjabo wuxuu yidhi waan idin laynayaa weliba sida dadka loo dilay caadigaa idiin dili maayee waxaan idin goynayaa talantaali dabeetana crosskaan idin saaraya waa idin salbinaya saasaan idinku samaynayaa buu yidhi mufasiriinta qaarkood waxay dhahaan fii juduuci nakli tiirarka inta laydin jeexaba dhexda laydinka gelinaya markaasaa laydin googoynaya waa torture iyo dil wada socdaan idinku samaynaya weeyaan
si caadiya kuu dili maaye waa ku googoynayaa waa torture iyo dil wada socda ayaa laydinku samaynaya. maxay ku jawaabeen? waxay dhahaan faqdi maa anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaat addunya. waxaad samayn karta samee bay maxaad samayn karta soo adduunkuun maaha inaad na dhaafiso waxa ugu badan inaad samayn karta. aakhiraanu dooranay bay leeyihin. ilaahay subxaana wa tacaala an kunaa awala almu'miniin baanu rabnaa inuu ilaahay dembigayga dhaafaanu janno helo wakaa saasay doorteen. waxaa laynoo tilmaamayaa markaasi akhriya adduun wax laysdhaafsadaynayn waa tusaalayaashii dadkii adduunyada dhaafsaday maxay aakhiro. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiista laga soo wariyey waxaa laynoo tilmaamaya isagoo nin dhallinyaro ah la talinaya. innagu dhallinyarada maxaynu kula talinaa? inankaad dhashay maxaad ku tidhaahdaa? waryaa nin noqo, meel ka soo bax, khayrkaa rag waa iska dhiciye iska dhici, xoogso, guurso. markuu intaas sameeyo aad baad u faraxsantay. waxaad u aragtaa war ninkaasi nin ragu noqday baad leedahay oo waa guri buu iibsaday, reer buu guursaday, caruur buu leeyahay, waa dhakhtar ama waa injineer waxaad u aragtaa nin meel ka soo baxay inuu yahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam nin 12 jira oo noloshu u cusub tahay ayuu la talinayaa. maxaan u tilmaamaya inuu 12 jir yahay? dee inagu haddii nin odayo waayeelo wuxuu dhalayana dhalay wuxuu dhaqayana dhaqayo markay kasii waxba aan gacantiisa ku jirin haddaad la talinaysa maxaad kula talin lahayd? war waad sii socotahay dee aakhirayay ku seeginuun soo maaha. ilaa waxaad u arkaysaa inaanu hadda ku awood dambe oo wax ku qabtaa inaanay jirin aakhiradaaduna haatan iyay ku seegin. laakiin nin dhallinyaraa markaad la talinaysa maxaad kula talin lahayd marka? ma odhanaysaa waryaa waad soo socotahay aakhirayay ku seegin? maya, inaga taladeenna maaha. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam kii yaraayee soo socday wuxuu ku yidhi cabdillahi bni cumar intuu garanka qabtay kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiri sabiil. ibnu cumarow, cabdillaahi oo adduunkan waxaad ku ahaataa nin jid goynaya ama nin meel aan degaankiisii ahayn joogo gariiba. maanta anigu waan idiin imi magaaladiina dee saan uga bixi lahaa baan ka fikerayaa. wax kaloo laga qabsado iga yaalla ma jiraan. afkaartaydu intaasay ku koobnaantay. haddaad waddo goynaysana dee qof waddo goynayuu maato musaafiro socda. kaasi siduu u fakero u fakar buu nabigu leeyahay adduunka markaad joogto. kaasi adduunka siduu uga fakeraya markaa waxa weeyaan adduunkan waxaad ku tala gashaa war meeshaad degaysay maahe meeshii aad degaysay waad ku socotaaye halkaad u socoto wax isaga horaysi. halkan waad ka tegaysaa macnaheedu weeyaane qofka musaafirkaa baa tahay halkii aad u socotay dadaalkaaga iyo raganimadaada iyo ninnimadaada geli. ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nin xoolo badan oo kibray oo tolkii la talinayaan. tolkii waxay ku leeyihiin laa tafrax in allaha laa yuxibu alfarixiin. war hooy ha kibrin bay leeyihin. ilaahay kuwa farxa kibirka ah farxa ma jecla. maxay kula talinayaan markaa? wabtagi fiima ataaka allahu addaar alaakhira. war waxaan ilaahay ku siiyey aakhiro wax kaga qabsa bay ku leeyihin. adduun baad haysataa soo maaha? adduunkani aakhiro waxa ku taro. wixii ilaahay ku siiyey aakhiro wax kaga qabsa bay idhaahdeen. walaa tansa nasiibaka min addunya. adduunyadana dheefta intaad ku leedahay ilaabin. marka midna waxay leeyihiin ha noqdo mubtaqaadka waxaad doonaysa wax ka qabanaysa ha noqoto, midna ha ilaabin baa la yidhi. labada tacbiira lagu isticmaalo u fiirso. adduunka ha ilaabin that means wixii aad cuni lahayd iyo waxaad cabbi lahayd iyo meeshaad seexan lahayd iyo intaa cid ha uga baahane tijaabi inaad samayn karto. amaa raganimadaada iyo kartidaada iyo caqligaaga iyo cilmigaaga iyo hantidaada iyo awooddaada meeshaad gelinaysaa ha noqoto maxay? ta dambaa loo tilmaamaya. marka waxaa leeyahay war hantidaad haysato aakhiro gasho wa axsin kama axsana allahu ilayk walaa tabgi alfasaada fi lardi iyo xumahana iska ilaali baa lagu tilmaamaya. ayuha alaxiba, ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa dadkii caqliga iyo cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka ahaa. ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala wadkur cibaadana
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. waxaad xustaa baa ilaahay leeyo dadka ugu sheegtaa nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam addoomaha iyagii baa ilaahay leeyahy. addoomahan ilaahay tilmaamaya waa iyo nebi ibraahim, nebi isxaaq iyo nebi yacquub. maxaa ilaahay ku sifeeyey? ulil aydi walabsaar baa ilaahay yidhi. waa dadkii xoogga u saaxiibkaa, daacada ilaahay ku xooga badnaa, aragtidana dheeraa. marka bini aadamka barh baa jira ra'yi fiican laakiin tabar daran, waxba qabanin. cid baa jirta wax qabadkeedu fiican yahay laakiin aan aragti fog lahayn. ambiyadan ilaahay wuxuu ku sifeynayeen ulil aydi marka hore, dad awood u saaxiib oo cibaadada ilaah iyo daacadiisa aan ka caajisin. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay inay yihiin asxaabu labsaar, dad indheergarada inay yihiin. marka sidaa loo sifeeyey, maxay waxaan awooddoodani maxay tahay? innaa akhlasnaahum bikhaalisa dikra daar baa ilahay yidhi. qoladan mid baanu ku gaar yeelnay baa ilahay yidhi, aakhire xasuusteedaanu ku gaar yeelnay baa ilahay yidhi. ambiyadani waxay gaarka ku ahaayeen waa aakhiro xasuusteeda, taasaanay marna ilaabin. aakhiro xasuusteedu hadday nugu badan tahay, adduunku agteenna wuu ku fududaanayaa, wanaaggeenuna wuu badanayaa. ninka aakhire agtiisa ku weyn tahay dadka miyuu dulmiyaa? ninka aakhire agtiisa ku weyn tahay wax ma xadaa? ninka aakhire agtiisa ku weyn tahay ammaanada muu dhacaa? idan adduunkan islaaxiisa wuxuu ku xidhan yahay aakhire intaynu rumaysannahay. haddaynu aakhiro dhab u rumaysannahay, adduunkeenuna wuu islaaxi lahaa. walaa dowladnimo walaa shacb walaa wax waliba wuu islaaxi lahaa. waayo dee markaad og tahay in lagu xisaabin doono, markaad og tahay waxa aad beerdaraynaysa aad waayeysa iyo waxaad helaysaa intuu yahay. imika waxaad jeceshahay bini aadamka agtiisa inaad magac ku yeelato, iyo maa roon inaad ilaahay agtiisa magac ku yeelato, iyo inaad kuwan kula midkii aan ku dhaamin agtooda magacaad ku yeelato. keebaa la doorbidaya? dadku wuxuu ka odhan de saa haddaynu yaallo, wuxuu ka baqayaa inuu ceeboobo. war ilaahay agtiisa iyo maalinta qiyaame inaad ceebowdo iyo kuwani waxay ceebta u yaqaan inaad ku ag ceebowdo, keebaa kula weyn? yacni waxaynu wax ku qiimeynayno o dhan wuxuu ku leeyahay reerkii baa dagaal ku jiro, waa kaas wuxuu is leeyahay dad lacagta bixin weydo reerka agtooda aad ku ceeboobi. oo ilaahay agtiisana ceebta ilaahay wuu ogolyay, laakiin ta reerku iska ilaalinaya. waa dadaalaynaa, dee madaxweynenimadaynu qaadanaynaa, wuu ku dagaalama. waayo wuxuu rabaa dee raggaynu iska dhicinaynaa, kafta kaa laynaga helayaa buu leeyahy haddayna saa yeelin. marka dadka ceebtoodu iska ilaalinaya. cidda aad u badheeraysa inaad agtiisa ka ceebowda ama aad wax ku weydaana waa iyo waa rabu samaawaati walard. goortaad rabta inaad ceebowdaa waa maxay? yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya. maalin baa ilaahay leeyahy waxaad samaysoo dhan waa lasoo bandhigayaa iyadoo khalqigoo dhammi tuban yahay, min aadam ilaa kii u dambeeyo joogo hortooda inaad ku ceebowdo ka waran. oo ceebtaasi naari ka sii dambayso oo janno weydo. idan ayuha alaxiba, aakhire inaynu door bidnaa. waxaa laga yaabaa dadka badh inay u fahmaan inaynu leenahay adduunka aynu iskaga tegaynaa, raahibiin bay noqon. war adduunkaa islaaxaya. adduunkeenu wuxuu islaaxi waayey, aakhiraynu ilownay. markaasaynu iswada dilnay, iswada dhacnay, iswada boobnay, iswada xaqirnay. wax kastoo mashkiladda waxay inoo geystay inaynu aakhiro ilownay. haddaynu se aakhiro door bidno, magac iyo maamuus waa helaynaa, ilaah agtiisaynu ka helaynaa, bini aadamka laftiisaynu ku sharaf yeelanaynaa. saxaabadii maanta maxaa dunidao dhammi waa ammaanaysa? maxaa gaal baa qoray dadka the most influential people through history buu qoray. markaasaa la tilmaamaya waa nebi maxamed iyo nebi ciise iyo maxaa ambiyadii ka dhigay? markaasuu tilmaamaya cumar bin alkhataab iyo kuwan maxaa ka dhigay? waxaa ka dhigay ilaahay bay raalli geliyeen, dabeetana dadka agtiisa qiimo ku yeesheenba. ilaahay markay raalli geliyeen, ilaahay baa qiimo u yeelay. marka ayuha alaxiba, nicmo tii u badnayd baad ku guulaysanaysaa. nicmadaasi aan wax mukadara, wax qasa lahayn, aan laga xanuunsanayn,
laga dhimanayn. tan haddaad soo hesho ima inaad ka dhimato, ima inaad ka bukooto, ima inay warwarba kugu hayso ilaalinteeda iyo gaala ka celinteeda iyo waxa kan saad u badbaadin lahayd ay mushkilad kugu tahay. waa noloshu waa wada dhib. tan lama dhergo. sidaynu u kala hanti badannaynu u kala baahi badannay saa ma ogti. dadku siduu u kala hanti badan Elon Musk ba hadda inoogu baahi badan. sababtu waa maxay? wuu inaga mashaariic waaweyn, hantidiisuna mashaariicdiisa kuma filla. saa daraaddeed nin waliba ninka 100 milyan haysta mashaariic 500 milyan uu ku jiraa. ninka bilyanka haysta mashaariic balaayiin uu ku jiraa. saa daraaddeed bini aadamku ma faqriga kama baxo. antum alfuqaraa, ilaahay baa qaniya, bini aadamna weligiiba waa fuqaro. waxaynu u baahannahay marka ayuha alaxiba, meeshan aad joogtaan waa meel dad maadiyiini joogaan, dad in badanoo ka mid aanay aakhiro rumaysnayn, dad tan raba inay wax ka noqdaan. adiguna waxaad rabtaa inaad aakhiro wax ka noqoto. isaga waxaynu leenahay aragtidiisa iyo dhaqankiisu wuu iswaafaqsan yihin. mardaanu aakhiro rumaysnayn, tan wixii uu sii boobi kara inuu sii boobo, wuxuu fuuli kara inuu fuulo, wuxuu cabbi kara inuu cabbo, ilaa halkan uun wax ka dambeeyaa ma jiraane. adiguse maadaamaad aragti dheer tahay oo wax badan oo kale aad rajaynayso oo aad u aragto adduunkan inaad in yar joogto oo musaafir aad ka tegayso, ta dambe saad u dhisi lahayd iyo daaraa aakhira saad u binayn lahayd. waxaa laga yaabaa ninka waxoogaa bixbixiya waxaa laga yaabaa inaad tiraa war waa mid loo faro xunbuu bixinayaa, reerkiina daaraba uma dhisin, war isagaa kuwiisii dhisanaya. beri dhaweyd waxaa lai sheegayay nin xoolo badan ka tegey, dabeetana xoolihii bay waxay ku yidhaahdeen markii la dhexlaya wadaadkii yidhi waryaadheen war odaygiidan dhalay waxaanu xoolaa ka tegey, bal masaajid iyo waxma u dhistaan oo wax uga taga. waar isba ka dhisan waabay yidhahdeen, maxaan ugu dhisaynaa? waar intaan lagu odhan aadba ka dhisan weyday yaan laguu baryina, waxaagii baa nin kale la weydiinaya oo lagaaga baryaya. adigu waxaaga wax ka qabso oo aakhiradaada adigu hagaajiso. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.